kadib weerarkii Xamaas ee Israel iyo duulaanka Israel ee marinka Gaza dibadbaxayaal ku sugan meelo kala duwan oo dunida ah ayaa kala taageeray Falastiin iyo Israel magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka muslimiin badan oo Soomaali ku jirto ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo lagu taageerayay Falastiiniyiinta qaar ka mid ah Soomaalida ka qayb galay ayaa VOA-da la hadlay magacay waa Shamso Cabdiqaadir Abshir waxa uu imaaday waxa ka socdo Gaza Palestine waxa ka socdo inaan waxa loo dul qaadan karay aysan ahayn rafaadka ka socdo ilmaha la leenayo dadka ma taqaana sida xun loo galayo inaan waxa loo dul qaadan karay ahayn annaga shacab ahaan marka dawladdan annaga dadka meesha dhiganay qof kasto citizen ah codkiisa waa xisaabsan yahay election year soo socdo waa inaad codkaaga qofka yaa siinaysa dadkaanayto Mareykan system ku socda waxa qof kasta codkiisa hadaadan inaad tusid way waxay ka baqaan بس عد كسيت واي هذا إسكا مستد وحاول ضدك وحير بناقص سميننا ضدك المسلمين تا فلسطين إلهي إنه كدر القاضي أود إنه أيران أصاب بنام بحنا إن شاء الله هو حنرشين إن إلهي إنه علوس كدر القاضي مركا بنام بوح ما أنت سكوسا بسنة dhinaca kale magaalada Los Angeles ee gobolka California xubno ka tirsan jaaliyadda Yuhuudda ayaa ka dibadbax ka sameeyay dagaalka ka socda bariga dhexe waatan haweeney ka tirsan jaaliyadda Yuhuudda oo aragtideeda VOA-da la wadaagtay wixii hadda ka dambeeyo ma awoodno ilaa Xamaas meesha ay ka baxdo waxaan u baahannahay inaan tirtirno waa inay baxaan tani waa taageeridda argagixisada ma taageerno argagixisada ma rabno inaan ku noolaano cabsi weligeen kuma noolaan doonno cabsi mar dambe